والله جوح مايه عكاله هكفوري انت واحد جوح مايه عكاله هكفوري انت واحد هربا جوح مايه عكاله هكفوري انت واحد والله جوح مايه عكاله هكفوري انت واحد جوحة تلك حمرتها قاعدة وسط حتى النار
خرج جو حاجتك حي مرتاحك دويستا خاتنا ورن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك bahda warbaahinta wardheer media marka hore ayaan salaamaya ciid mubaarak baan leeyahay marka xigta dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasto ay ku sugan yihiin taafaha caalamka ciid mubaarak baan leeyahay ciidul caafiya aan leeyahay marka xigta waxaan salaamayaa si khaas ah bulshada reer Ogaadenya meel kasto ay joogan ayaan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay inta kadib waxaan guda galayaa barnaamijkayga arrimihii aan soo galay meeshan ahaa jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ayaan baaq halkan uga jeedinayaa baaqaas oo ku saabsan isbeddelka ka jira Ogaadenya iyo geedi socodka ka jira iyo nidaamka siyaasadeed ee hadda ka jira yaan doonayaa wax yar inaan ka hadlo oo ah barnaamijka hadda baraha bulshada haysta ee khilaafaadka ku saabsan oo aan doonayno haddaanu nahay dhalinyarta Ogaadenya meel kasta oo ay joogaan sida ugu quruxda badan ama ugu fiican in loo hago geedi socodkeennii muddada dheer aan ku soo jiray halkan ku soo jiray kaasoo aan u bogin waxyaalaha baraha bulshada haysta ama dadka xubnaha ha ahaadeen ama dadka reer Ogaadenya kala ha ahaadeen shacabka ha ahaado waxaan ugu baaqaynaa dadka xubnaha ah ee baraha bulshada ku jira ee waxyaalaha aan loo baahnayn soo qorahaya ee waxyaalaha kala qaybinta ah ee ataagahaya shakhsiyaadka ataagahaya inay ay arrinta ka waantoomaan oo dhinaca fiican iyo sidoo halgankeenu u socday qof walba uu isku balgaraamiyo maanta fursadaynu haysanaa sidii aynu uga faa'iideysan lahayn aynu cadawgeena gacanta inugu hayay maanta kala daadsanaantiisa aynu uga faa'iideysan lahayn wadankeena iyo shacabkeena aynu gacanta ugu qaban lahayn qof walba oo reer Ogaadenya oo shacabka bulshada kamid ah oo xubina si khaas ah inay arrintaas u taabataan doonayna dadka xubnaha meediyaha sida qaldan u adeegsanayeen in iska dayaan oo ka waantoomaan ayaan u dirayaa baaqaas talabaad waxaan dirayaa baaq madaxda jamhadda ugu sarsareysa baaqa waxaan u dirayaa dadka Ogaadenya hadda maanta la dhowranayo ee la doonayo si wanaagsan in ay wadanka ay u hagaan ama ummadda u hogaamiyaan waa iyaga ugu horeeyo Sheekh Cabdiraxmaan Maadey ku xigo madaxda kale jamhadda Axmed Yaasiin Cabdikariin admiraalka dhamaantood heel ma dhigi karo dhamaantood jamhadda waxaan ka codsanaynaa madaxda jamhadda waxaan ka codsanaynaa haddaan xubnaha reejo waxa meel kasta oo joogno waxaan ka codsanaynaa in ay naga daayaan waxyaalaha dhagaxna ku soo dhacayo sida ugu fiican isku duubni iyo midnimo in ay ku tashadaan kuna hogaamiyaan wadanka haddii kale oo khilaafkan macnaheedu iyo waxyaalahan macnaheedu la sheegayo aad idinkuna aad macnaheedu maartay aad dhax gashaan waxyaalo badan oo saameyn keenaysa annagana qalbiganaga way dhaawacaysaa muddo dheer baan haddaan bulshada reer Ogaadenya shacabka dhalinyarta aanu nahay aanu u samreynay oo 30 iyo ka badan ba waxaan doonaynaa marka maanta in aanu noqono dadka faa'iideysta waqtiga fursadda ay haystaan dadka faa'iideysta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mid kale madaxweynaha dowladda deegaanka waxaan u dirayaa Mustafa Maxamed Cumar waxaan u dirayaa isagana baaq baan u dirayaa waxaan ka codsanaynaa adigana sida fiican fursadda aad haystay fiican dadka faa'iideysato in aad maanta bulshada si fiican oo midnimo ah oo hal mowqaf in aad u hogaamiso waad aragtaa maanta madaxweynaha kilalka ama deegaanka oromada sida ay gacmaha soo haystaan haday jamad yihiin iyo hadii ay yihiin dawlad mucaarad hadii yihiin muxaafad hadii yihiin dhamaantood inay gacmaha haystaan dhamaantood waa ilka abees hoos ka xiriirsan baa la yiri waa dad xiriirsan waa dad mida waa dad ku tashaday Itoobiya haday burburto inay gobolkooda la go'aan ay dawlad noqdaan Oromiya leeyahay annaguna waxaan u baahanahay ka dawlad deegaanka haysta iyo madaxweynaha jamhadda waxaan u baahanahay dhamaantood inay mid noqdaan gacanta la isqabsado adna intaasan ka codsanayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان هلكن كسلاميا dhammaan ummadda muslimiinta meel kasto ay joogan khaasatan waxaan salaamayaa bulshada reer Ogaadenya mas'uuliyiinta jabada xubnaha kaadirka ah iyo dhammaan bulshada reer Ogaadenya meel kasto ay joogaanba khaasatan waxaan salaamayaa madaxda jabada ugu horeyn gudoomiyaha jamhadda Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey iyo madaxda kale ee hogaaminaysa muraayada nooaba waan salaamayaa waxaan leeyahay kulli caam wa antum bil khayr dhammaan muslimiinta ciid mubaarak baan leeyahay haddii aan u soo laabto ujeedkayga ama aan ujeedada aan meeshan u nimaanay aan u soo laabto annagoo ah dhalinyaradii reer Ogaadenya khaasatan xubnihii OASU aan nahay oo meeshan nimaanay waxaanu u nimaanay oo ujeedadanadu tahay in aanu muujino dareenkanaga iyo waxa aanu tabanayno in aan muujinano meeshan u nimaanay waxaanu u nimaanay dhalinyarada kaadirka jamhadda sheeganaysa muraayadii halganka ahayd ee waxgaradka ahayd ee la rabay inay wax laga barto inay maanta khalad bulshada baraan oo social media khalad u isticmaalaan
oo caqligii ilaahay siiyay ay khalad u isticmaalaan oo ay ku talagalaan inay halgankii ay ku burburiyaan halgan baanu muddo dheer ku soo jiray hooyo iyo aabbi iyo haliyeyba lagu waayay loo agoontoomay asay loo qaaday dhalinyarada reer Ogaadeenaya wax garadka ee social media isticmaalaysa ee maanta isku dayaysa qadiyadii intaas oo sano loo soo halgamayay ee loo soo dagaalamayay inay burburiso iyaga oo wax aan macna lahayn iyo cadiifad iyo qabiil iyaga oo xigsanaya ama uu dhufayskoodu intaas yahay isku dayaya inay qadiyada reer Ogaadeenaya burburiyaan ee intaas oo hooyo ay u gablantay waxaan leeyahay horta waa nasiib daraan leeyahay dhalinyarada reer Ogaadeenaya ee isku sheegaysa kaadirka ee social media isku eriyanaysa horta baaq baan u dirayaa waxaan leeyahay horta halganku khasaaraha duulaha hooyooyinka qaba gabdhaha qaba reer Ogaadeenaya hooyooyinku way agoontoomeen asay bay qaadeen wiilashooday waayeen gabdhaha reer Ogaadeenaya ee wada 15 jirka ah ee hal wiil oo ku wada agoontoobay ee asayda intay Ogaadeenaya u soo qaadeen haddana hal wiil oo 15 jir ku wada qalalay ee u guuriya gayaan seegay halganka reer Ogaadeenaya ee maanta moraalka kaga ciyaaraysan horta nafsigoodu uu idin qaban doona dhalinyarada reer Ogaadeenaya ee social media isticmaashaan khaasatan baaqan u dirayaa waxa kale oo baaq u dirayaa madaxda jabada laftirkeeda iyaga laftoodu xaaladoodu shaxshax ma aha filimkoodu dhala ma aha leeyahay nimankaas haysa saxan muraayada kali ah waa iyaga aan daawanayno waxana matala waxa aan ku hagmayno waa iyaga khaladka jiro waxaan leeyahay 99% madaxda jabada ka dambaysa iyaga waxaan leeyahay buush garaynaya because waxaan aragnaa afar wiil oo social media ku waalatay oo hebelta ku haysa oo hebel ku qarweysa anaga nama kala xigaan madaxda jabadu halgankuna mid buu noo yahay waxaan baaq u dirayaa dhammaan jabada ilmaada rayaalo waxaanu idin leenahay asay baan qaadno waan agoontumownay oo halganku anaguna saameeyay hadaanu nahay gabdhaha reer Ogaadeenaya nafsiga anaga ka yaabo ilmaada rayaalo waxaan leeyahay ummadda aragtidiina khaladkeed adeegsanaysaan si sax ah u adeegsada oo halganka ha burburinina halganku meel fiican buu marayaa kaalinta uu maanta ku taagan yahay malkuu marayaa ka talaabsiya horta waxaana leeyahay ruuxii maanta soo gaadhay oo nasiibkaaga kugu simay ee nasiibkaaga intaad alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhahdo maskaxda ilaahay ku siiyay intaad sax u isticmaasho ilmaada rayaalo halgankeenu maanta meel fiican buu marayaa aynu taabagelino oo aynu madaxda jamaada aynu ataagayno aynu leenahay hebel nin walba hebel Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi waa shakhsi halganka shakhsi buu ka yahay saasaa la isaga qaban karaa uu iska tagi karaa waxaan maqli jiray markuu halganku socday ee ciidanku qalabka sida ee gudaha lagu jiray halganka reer Ogaadeenaya waa tareen baan maqli jiray madax ina Cumar Ismaan haduu is dhiib halganku uu socon baan maqli jiray marka ilmaada reyaal waxaan leeyahay aynu maskaxdeena ilaahay ina siiyo aynu sax u isticmaalo halgankeena in daacad u noqono hufnaan aynu muujino maanta waxa halganka burburin kara waa dhalinyarada social media isticmaalaysa waxa talaabo laga gudinlayaa waa iyaga ilmaada reyaal oo baaq baan idin dirayaa oo waa naga cabasho oo waa naga tabasho waliba anagoo ku hadlaya magaca gabdhaha reer Ogaadeenaya waxaan leeyahay midnimo mintid isku tashi yuu halku dhaga jabadaha mana uu isbedelina ilmaada reyaal sida aynu isku ogaano wabillahi tawfiiq waan idin salaamay